Asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada. Maanta waxaynu ka hadlaynaa 4 qodob oo ay tahay inaad samaysid haddii aad doonaysid inaad imtixaanaadka aad ku guuleysatid ama aad ka keentid darajo aad u sareysa ama fiican. 4tan qodob waxay kaa caawin doonaan insha Allah haddii aad dabaqdid oo aad samaysid inaad darajooyin fiican aad ku baxdid maadadaas aad rabtid inaad meel ka gaadhid ama aad rabtid inaad ku baastid. Haddaba 4tan qodob aynu maanta ka hadli doono ayaynu mid isku dul taagi doonaa. ugu horreyn waxaan kaa codsan doonaa inaad channelka noo subscribe gareysid. Maanta waxaynu ka hadli doonaa sida aynu soo sheegnay 4 qodob oo kuu muhiima haddii aad doonaysid inaad imtixaanaadka aad darajo fiican aad ku baxdid ama aad si wacan aad u baastid. Marka qodobka koowaad aynu rabno inaynu isdul taagno waxa weeyaan marnaba ha jarin xiisadaha classes-kaaga. Haddii aad doonaysid inaad maadadaas si wacan aad ugu baastid waa inaad xiisadaha soo xaadirtaa ugu yaraan 90% aad si wacan u soo xaadirtaa oo aad la socotaa macalinka iyo waxyaalaha uu soo jeedinayo iyo maadadaas marka uu dhigayo dhanba aad galaaska aad joogtaa. taasi waxay kaa caawin doontaa inaad dib aad u xasuusatid waxyaalihii uu macalinku sheegay ama aad si fiican aad u qoratid waxyaalaha uu ka hadlayo macalinku. Marka qodobka koowaad waxa weeyaan inaanad jarin kalaaska inta ay xiisadaasi socoto ama inta uu semesterkaasi socdoba inaanad jarin classeska kala duwan ee maadadaasi leedahay. Sidoo kale qodobka labaad ee aynu ka hadli doono waxa weeyaan qorshe ku soco ama baleen ka yeelo waxaanaad dhigatid. Tusaale haddii aad doonaysid inaad si fiican aad wax u baratid waa inaad marka hore aad qorshe aad ku socotaa oo aad yoolaad ka leedahay ama aad qorshe aad ku socotaa kaas oo aad wax u baranaysid. sidoo kale haddii aad qorshe ku socotid waxay kaa caawinaysaa inaad maadooyinkaaga iyo waxyaalahaaga dhanba aad dib u muraajacaysid oo aad akhrisid. sidoo kale qodobka saddexaad aynu ka hadli doono waxa weeyaan note garayso waxyaabaha muhiimka ah oo macalinku sheegayo. haddii aad galaaska dhex joogtid waxaa lagaaga baahan yahay inaad note yar aad siiyatid. note-kaasi ama ha noqdo buug yar oo aad siiyatid kaas oo aad kaa lumeyn oo aad wax ku note garaysan kartid. sidoo kale waxyaalaha aad note garaysan kartid waxaa ka mid ah macalinka marka uu waxyaalaha uu dusha uu ka sheego ama waxyaalaha uu samuurada uu ku qoro kale waxay kaaga baahan tahay inaad note garaysatid oo aad note yar aad ku qoratid. sidoo kale note-kaasi wuxuu noqon karaa inaad mobilkaaga note-kiisa aad adeegsatid oo waxaynu ognahay in mobil kastaba uu note uu leeyahay ilaa Samsung-kii hore dhammaantood way wada leeyihiin. marka qodobka saddexaad ee aan inagula talinayo ardayda waxaa ka mid ah inaad note-kaaga aanad marnaba dhigin haddii aad xiisada aad joogtid iyo haddii kaleba. sidoo kale waxaan inagula wadaagi lahaa videogan qodobka 4aad oo ugu dambeeya kaas oo aynu kaga hadli doono adeegso jadwal maalinle ah oo aad wax ku akhriso. maalin walba waxaa lagaaga baahan yahay ugu yaraan inaad 20 mirir ama 15 mirir aad muraajacaysid maadooyinkii ama maadadaas aad rabtid inaad si wacan aad ugu baasid aad soo muraajacaysid casharkii shalay iyo waxyaalaha la dhigay. marka jadwal waa inaad lahaataa waa inaad jadwal lahaataa kaas oo aad wax ku qaybi kartid oo maalin walba jadwalkaas ku haga maadadaad eegi lahayd maadadaad akhrisan lahayd maadadaad dib aad u muraajacayn lahayd iyo waxyaalahaas oo dhan. sidoo kale waxyaalaha kale aynu kula sii talin lahaa waxaa ka mid ah inaad adeegsataa Google Calendar-ka kaas oo aad ku kala qorqoran kartid oo ku xasuusin kara maadadaad u lahayd maalinkaas aad qaybi lahayd inta waqtiga aad maadadaas aad muraajacayn lahayd ayaad ku note garaysan kartaa si uu kugu soo dhaco fariintu ama uu kuu ogeysiiyo adigoo mobilkaaga iska isticmaalaya. marka 4taas qodob ee muhiimka ayaan la jeclaaday inaan la wadaago. waxay naga codsan lahaa inaad channelka noo subscribe garaysaan
asxaabtiinana la wadaagtaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.